wuxuu waxaan doonayaa iyadana inaan yara taabto waddanka sign language-kiisa ama luqadda suuldhabaalaha ee faraha uu yara kala duwan yihiin imka Boorama oo kale sign language-keedu uu yara duwan yahay Hargeysa oo kale marka anigu waxaan ka yara shaqeeyay intii aan xilka hayay in sign language lagu mideeyo luqadda suuldhabaalaha ay ku mideysan bulshada Soomaaliland inaan ka shaqeeyo arrinkaasna waan ku jiraa arrinkaas culays ayuu igu yara noqday buu yiri hawsheeduna waan ku jiray gabagabana way maraysaa insha Allah waxaan rajeynayaa hoggaanka cusub inuu dhameystiri doono anigu kamid ah xubnaha maqalkooda xadidan yahay oo tartamaya boodhka cusub karaan gudoomiye ku xigeenka waxaan rajeynayaa bulshada maqalkooda xadidan yahay inaan u qabto horumar la taaban karo waxaan balan maqaad karo laakiin wixii awoodeeda ilaahayna waa jira insha Allah waan qaban doonaa bulshada dhifka la shaqeyn doonaa insha Allah sidii hore waxaan doonaynaa wax ka bedelna insha Allah qablaha in lagu doorto gudoomiyaasha ururada iyagu ay hogaamiyaan hoggaanka u qabtaan tacabkooda la arko in badan bay rag soo hogaaminayeen laakiin aynu aragno hablaha oo hogaaminaya in ururka dhagolayaasha Soomaaliland yihiin urur naafada kale aad uga dadaal badan uga soocan uga wax qabad badan uga firfircoon uga karti badan waa maalin weyn waan ugu faraxsanahay wixii aan la qaban karnaa dhamaantayo waan garab taaganahay anagu kaway biirhaan waxaan hoggaankii horena waa la shaqeynay hoggaanka cusub ee soo socdana waa la sii shaqeyn doonaa ina halkan isugu timaadaan oo ku tala gashaan inaad si daafurnaana u qabataan doorashadiina aad iyo aad baan idinku halmaliyeenaynaa kadalad ahaan nagaad waxaanu shaqo dhow la leenahay oo xiriir fiican la leenahay waa inta badan hablaha maqalka naafada ka oo sanad kasta 16 oo kale aanu hablo kamid ah aanu gudoonsiinay abaalmarino oo ay hablihii aan ku faraxsanay qaarinay hoolka maanta ku sugan yihiin waxaanu imika wadnaa oo wasaaradda arrimaha bulshada iyo dalada naafadu ka kaashanaysa anagoo wasaaraddiintii oo qaafta kala hadalnay iyo ururka dadka maqalkoodu xadidan yahayba in la sameeyo macad u gaara dadka maqalka xadidan oo diintii shariicada islaamka lagu baro anu magaalada waxaan kula kulmaa runtii dhalinyarada inta badan waan arkaa waxa dadka ugu qalbiga wanaagsan ugu qalbiga fiican way isjecel yihiin inana waynaanu jeclaanaa aynu dhamaanteen wada jeclaanaa walaaladeen waa dadkeeni weeyaan oo maqalkoodu u yara xadidan yahay waxaa muhiim ah ayaan doonayaa buri inaan sheego ah in miisaaniyadda ururku ay gaadho dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan Boorama Burco gobolada oo dhan in la gaarsiiyo qodobkaas baan doonayay buri inaan ku darsado aniguna anagu gobolka saaxil dadaal baan ka wadnay sanadkii u dambeeyay oo ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayeenta aqoonta iyo horumarinta bulshada dhiifka aad baan ku guuleysnay dadaalkaasi bar kamid ah waan rumaynay anigu markii koowaad aan xaflad noocan oo kala aan imaado ama ka soo qayb galo aadna waan ugu faraxsanahay inaan joogo doorashadii shirweynihii saddexaad ee ururka dhagolayaasha Soomaaliland anigoo gabilay aniga kale teamkeygana way socdaan aad baan ugu faraxsanahay waliyaal leeyahay dhabaatiiba shaqadana waxa weeyaan waa qorisu dhiib waxa aan idin rajaynayaa inaad la shaqeyn doontaan ila taa gudoomiyaha u doorateen iyo gudoomiye ku xigeenka iyo xog hayta labaaga maamulka lacagta waxa weeyaan inaad la shaqeyn doontaan baan filayaa waxaan idinku go'aaminayaa la shaqeysaan sidaa wacala hawsha wadaana ilaa wadaan hambaliyo